xildhibaan jaamac jibriil jaamac oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceergaabo oo kula hadlayay gudaha magaalada Ceergaabo telefishinka Ariel ayaa dhalaalihii ugu cuslaa abad u jeediyay mayrka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo ku eedeeyay lunsi hanti qaran iyo arrimo kale oo la xidhiidha jabhadda Korneel Caare oo uu sheegay inuu ka dambeeyay bixitaanka jabhaddaasi iyo weliba qodobo kale oo xasaasi ah waxaana xildhibaan jaamac jibriil jaamac hadaladiisii ka mid ahaa sida tan waxaan halkan ka sheegayaa waxa halkan ka jira nin oday ah oo boobay gobolkii ama degmadii Ceergaabo magaalada Ceergaabo qoraal waan ku sameeyay waana la helay qoraalkii joornaaladan waan ku qoraynaa TV-dan waan ka sii deenaynaa meediyaha WhatsApp-yadana waa laga daawan doonaa wixii la isku difaacayo hala diyaarsado mayrka degmada Ceergaabo wuxuu iibiyey NGD weynayd ay lahayd dawladda siyaad bare u dhistay ANC laantii raashimada iyo waxa keenin jirtay ganacsigii oo cabirkeedu ahaa 200 iyo 200 wuxuu ka iibiyay Elmo Faarax 70 kun buu ka siiyay ninka odayga meeshaas maanta waad arkaysaan sawiradeeda oo la tusi doonaa Elmo Faarax baa la weyn ka iibsaday wax lagu qabtay lama jirto waana 2005tii waqtiga waxa la iibsaday ninka la yiraahdo Ina Sulub oo shalay loo magacaabay wasiirka wuxuu iibiyay boostadii qaranka ee ahayd ilaa Ingiriis dawladda siyaad barisiye hagaajisay waxa laga iibiyay ninka gafana la yiraahdo Telesable oo uu la shurug yahay waxa laga siiyay 70 kun malaha lacagtii jeebka ayadiga ay ku dhacday wuxuu iibiyay dhakhtarka dhinaciisii dhawaan 120 lagu dhiftay 80 oo dhakhtarka dhinaceeda uu jaamacad baa laga dhigayaa waxna lagu ceebeeyo la yiri dhagax dhig madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meeshaas waa meel private ah oo dad leeyahay guriyana laga dhisanayaa jaamacad jirta ma jirto wuxuu iibiyay laantii ganacsiga meeshii ay ahayd ee suuqa bartikiisa ahayd waa dhawaanta 95 kun ayuu siiyay wuxuuna ka iibshay Cabdi Triika ninka la yiraahdo jeebkiisa ku dhacday lacagtaasu wuxuuna noogu marbarsiyooday inuu laamiga Tisplaas dhisayso uu ku hagaajin doono intiisana ku darayo lacagtaas waxaanu iminka ogaanay inuu Turkiga guri kaga dhistay meeshan Ceergaabo labadiisa guri ee waaweyn hore dhexdoodana uu guri kale ka dhistay wuxuu iibiyay beerta xorriyadda wuxuuna ka iibshay inaan reer Ceergaabo ah inanka waan u sheegnay waa in wanaagsan oo iska shaqeysta laakiin uu ku khasbay inuu ka iibiyo waanu ku haynaa cadaana wadaarki doontaan beertii iyo guriyihii maaliyadda dawladdii Ingiriiska iyo siyaad bare isaga sii dambeeyeen labadiiba isaga haysta wuxuuna ka dhisay wuxuu ka samaystay beer weyn oo uu riigeliyay riigana well fishan baa samaysay waa riig solar isagana ka faa'iideystay waana shacabka Ceergaabo wuxuu kaloo boobay dhul beereed fara badan oo uu riiga ka samaystay wuxuu beerta ilmacalinahay meel ku tilmaamo riig buu ka samaystay Islamic Relief ay samaysay riigaas waxa weeyaan booyadaha ayaa maxay ahayd ka dhaamiya lacagtiisuna jeebka ku dhacda waxa halkan 4-5 riig oo magaaladu ka cabto riigagaas cunaqabateen buu ku hayaa dadkaas biyuhuna mitr kubiyo waxa weeyaan 25 kun dadkuna way ka qatayeen wuxuuna ka iibshaa dadka beeraha lacagtana isaga ka qaata wakaaladii wuu diiday dawladdu inay la shaqeyso oo gacanta ku qabato wasaaraddu isagana xoog ku haysta rigagii dawladda isaga haysta
wuxuu sameeyey gurigiisa beerihiisa uu xaaraanta ku haysto wuxuu ka dhisay wada riig ayuu ka sameeyey riigagaas waad wada arki doontaan fartaa laydugu fiiqi doono waxaas oo dhacay oo khiyaana ah waxaa jiray iminka WFP raashimo ay keentay oo dadka shacbiga la siinaya nimanka raashinada keena waa niman uu dhacay oo lacag ka qaado baada weliba wuxuu yidhi waan diga bedelayaa haddii aydinaan siin 15% waa 3 nin dadku way ogyihiin reer Cergaabo wuxuu maxay tahay hay'adaha gobolka jooga tii aan soo marin oonu lacag ka qaadin ama meesha uu leeyahay aan wax uga samayn ma dhaqaaqi karto walaa cid buu ogol yahay walaa cid ka hadli karta iminka wuxuu wadaa dhaam weyn oo 500 ku baxayso ayuu ka wadaa madare oo gurigiisa lacagta ku baxaysa waa SDF ka ayaa bixinaysa dawladda Soomaaliland ma soo siisay bila aadankana in loogu faa'iideeyo dadka community-da waxa soo kale in looga faa'iideeyo inay nisiyaan xaq uma leh hal xisaabtanto dawladdu tii hadii ay dadka boobaya u caburinayso tii waxa weeyaan arrin aad u liidata marka wuxuu kale oo sameeyay waxa la noocaas oo meelana oo dhibaato ah aakhirkii wuxuu sameeyay inuu saldanad samaysto oo inuu adeer u yahay saldanadii soo jirtay ee reer Muuse Maxamed Cigaal ee wiligeey jirtay ee lagu caalamaalay ee dadka kala hageysay inuu baabi'iyo inuu adeer u yahay oo ka dhigo beesha odageedii beesha Muuse Ismaaciil taasna waa laga diiday madaxweynuhu uu tagay ina kaahin buu u tagay wuxuu yidhi war ninka halayla wado hataa 3 shirkadood baa magaalada ka jira Telesom Leyrka maxay ahayd shirkadda Gols la yiraahdo saddexdaba wax buu ku leeyahay mid waxa ugu jira 100 oo share ah Telesom ta kalena inaan ka yareyn buu ugu jirta shirkadda Leyrka la isaga wala badankeeda isagiyo 2 nin oo kala dambaaba yarkan uu commissionka geeyay hadda waliba waxyaalaha kale uu sameeyay waxa kamid ah jabada iminka buurta ku jirta oo dadka cadibaysa waa ragii keenay meesha ay soo gala halka markuu caari buurta galayna wuu baxsaday oo Hargeysa uu baxsaday haddana Muuse biixu hor fadhiyaa oo leeyahay caari lacagan ku saaro iyo hadiiba ku reeyahay habarunistu ku dhex dhuumanaya ninka odayga ah waxaan u sheegaynaa wixii qoraal waanu haynaa milyahan u dhiibaynaa qoraalkii waanu gudbinaynaa dawladdaanu gudbinaynaa iyo xerlayaasha qaranka waxaanu gudbinaynaa waxaanu gudbinaynaa amniga ummadda Soomaaliyeed reer Soomaaliland baanu u gudbinaynaa kuwa koolkooliyaan u gudbinaynaa oo yiraahdo waa nin raga dambiilaha noocaas marka waxaan codsanaynaa in ninka caynkaas baadhis la soo diro la eego waxyaalaha uu sameeyay waan tustus maayirka degmada Cergaabo Ismaaciil Xaaji Nuuraad baad mahadsantahay maalinta shalay timid xildhibaanada golaha deegaanka degmada Cergaabo ku magacaabo Jaamac Jibriil ayaa ku eedeeyay musuqmaasuq iyo inaad isticmaashaan tirada dawladda arrimaha kaas arinta ninka Jibriil Jaamac uu ku hadlay waxa loo bartay oo cad laga dhigtay nin walba wuxuu doonayo inuu ku hadlo dawladda TV-da la isaga jawaabo oo aan hore loo raacin arinta waxaan ka joogaa dawlad baynu nahay sharci baynu leenahay sharcigan ka fadhiyaa hay'adaha sharciga ayaan u gudbinayay arinta iyada waxaan ku kalsoonahay wixii ka soo baxa sharciga ayaan ku kalsoonahay isagaana ka jawaabi doona cadayntana laga sugayaa inuu keeno marka ma jirtaa leedahay waxaan tii oo si gooniyaad u isticmaashay meeshu nidaam dawladeed baa ka dhisan gole deegaan baa ka jira guddiga fulinta dawladda hoosaa jirta waaxda agaasinka waxaa dawladda hoosaa jira wax qof goonni u samayn karaa maba jiro
وحويه وشورى واحد كشرا ما كشران لكن سقعدين دونا أنيقو وأنا ينوين وعن سوق علي قناعسك سديد كنتكي إلى سديد كنتكي إلى تدبي سديد تنكي وأنا قناعسي هو اللي سكن وعن قاطي أفريل تنكي وأنا مرة وبروني بيزنس كا رجعنا وبروني كم ذا إن بديرو وحكم ذا دابشيل كان ما أنت تشوفه وحكم ذا نمن رجع أرجع وفر بدن صالح مرة نلا يرادو إن هذا فنين عود على السنيرة رجع أرجع وفر بدن وأنا هصدق إلى بعضنا كقف أرجع هول سلك كا ولي بكون يقول ريبان كم ذا خيبت ورسه رجع بدون يقول ريبان ويشلن لكن ده حضانها إلى وقت جاء وحنا أنا ونين حكسته ganacsigii waxaan ka baxay markii waddanku arbishmay ay ahayd 760kii markii dalka la soo galay 1990kii ayaan dib ugu noqday ilaa iyo 2002 ganacsi baan ku jiray 2003 ayaan soo galay siyaasadda ayaan dib ugu soo noqday intaa ka dambeysay waxaan siyaasi hantida aniga maanta ay khusaysaa وأنتي وقتي هاد بدن سوتشي تميسي يعني كشقي أنتي ذا عن ليه هنا وواحد قديمة هذا بارتهاي هذا قريتهاي هذا ودالتهاي ولا بغاربانو شيء إن كسي بدل ما ليه وربانو كاهن وانو قرنين أنتي نوع عسى كتمي شامعين تاوتشوي عريش نكون ولا عرقاو sidoo kale xildhibaankaasi wuxuu kugu eedeeyay inaad aasaaskii jabhadda caare wax ku lahayd arrimaha maxaad iska difaacaysa arinta caare markii uu soo galay dalka anigu ma joogin isagoo qarni jooga ayaan anigu dhoofay oo halka imi oo Turkiga qabtay anoo Turkiga jooga ayaa caare soo galay meesha magaalada Ceergaabo ama gobolkaasi sanad xaalado kala duwan baa ka taagnaa maalintii shalayta waxa weerar lagu qaaday ama habeennimadii saldhigga booliiska arrimaha maxaad kala socotay waqti dhacdooyin dib iska dhacaan oo waa akhir zaman waa waqti waxa dhici kara weey in marasaas saldhigga ku furay baa leeyay baaris baa loogu jiraa ka hor dhici maayo ilaa hadda waxay ahaayeen garan maayo anuu Ceergaabo kuma sugnayn uma joogin ergeysan joogin waan waxa jirtay idinkoo ergeynad madaxweynaha la kulanteen arinta caaraad kala hadasheen arinta dad badan baa suuga hadlay bal arintaas xagee ku dambeysay arintaas waayeel baa jooga salaadiina iyo ragacayana oo reer Ceergaabo oo fara badan way socotaa insha Allah waxaan rajaynaynaa in dhamaato washa badan baa jirta gobolka Sanaag oo kale marka la eego isleedahay xukuumadda madaxweyne Muuse Bixi waxba ka qaban kartaa arrimaha wallaahi horta meeshan Sanaag la yiraahdo dib waa meel fog waa la yidharin ninku dhaw laf kala baxa caasimaddu Hargeysa 800 kilomitir bay noo jirtaa waa meel aad u dheer annaguna wax badan oo mashkalada oo gudahayaga oo Ceergaabo Sanaaga ayaa jira meesha wax ka dhacay rabshado badan nabadgelyo xumo badan ba ka jirtay haddii taas u baabaado waan ku rajaynaynaa wax badan laga qabto deegaanka in badan baad maayir ka ahayd maxaa la soo karaa maanta waad qabatay ama aad umada u sheegaysaa waxaan sheegi karaa dawladda hoose anigu waxaan ugu yimi hal gaari oo wadan jiray maayirkii horreeyay maanta waxay leedahay 12 gaari waxay leedahay macadaad wax qolo naga dhimin boodii daamirka iyadana sanadkan cusub horaantiisa ayaan rajaynaynaa inaanu geyno macadaadka inta kale waa noo dhantahay waana noo yaalin 18 kilomitir oo laami waanu samaynay waanu ku guulaysanay meel fiican bay noo maraysaa waxaanu samaynay gaadiid badan oo dawladda hoose leedahay waxaanu samaynay dhismo badan oo dawladda hoose leedahay kuwaanu furay iyo kuwaanaan weli furinba aanu hadda furi doono insha allahu tacaala waxaanu geynay ilaa iyo dabdamisyadii aanu airborka ugu talagalnay meel aad iyo aad u fiican bay maraysaa waxaan rajaynaynaa inaanu in badanna ku darro inta awooddeeda maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur aad baad mahadsan tahay waraysiga aad siisay telefishinka Saab aad baad mahadsan tahay